xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay aayaha degmada Kaaraan gaar ahaan ka shaqeynta arrimaha amniga waxaana kulankaasi ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ururada bulshada rayidka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ka soo qayb gashay kulankaasi oo goobta ka hadlay ayaa isku si u sheegay in degmada ay ka dhacaan qalalaase amni oo ay sabab u yihiin kooxo hubeysan kuwaas oo mararka qaar dadka shacabka ah ee ku nool waxa kala duwan ee degmadaasi u geysta dhac iyo dil gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Abshir Kaaraan iyo taliyaha qaybta bari ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaana dhexe Khaliif Cabdulle Maalin oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in horumarka degmada ay hortaagan yihiin burcad hubeysan ayagoo nooc walba u hubeysan dhibaatada ugu weyn oo maanta laga dhigay hay'adaha adeega bulshada loogu adeegi lahay ama han noqoto awaamirtii gobolka oo baxday intaba is hortaag ayaa ku yimid waxaan ugu yimiday askari hubeysan oo labisan oo qorigiisi iyo wixiisa wato cidda uu ka tirsan yahay iyo meesha uu jeedana aan la aqoonin caqabadaha ugu weyn degmadan waa intaas horumarro kale aan sameeynay oo arrimaha bulshada ana waxa laga yaabaa qof aan danayhaynin in uu askarigaas u adeega biri is hortaagna uu ku sameeyo dhibaatooyinkaas badan markaan aragnay dadkii ama wax nagala qabo lahay ama nala qaadi lahay ama mas'uuliyadaas nala qaybsan lahay in aan u yeerano lagana wada tashado aayaha degmada Kaaraan maanta intaan iyo intii maqan oo wax garad ay u taala waxyaabaha aan ka cabanayno waxa kamid ah dad rag wata tuutaha dawladda oo ka dhiman oo kob iyo shaar iyo jaakad kaliya wata hoosna macawis ka wata qaar gabigooda macawis wata iyo shaar wata iyo boosh wata kuwa leh waxaan nahay macawisley oo gobolada aan ka nimaadnaa markaad qabato dad badan oo noocaas ah deegaanka soo buuxshay kalama naqaan waxa codsanaynaa dadka saraakiisha la shaqeeyana inay guryahooda ay joogaan oo ku ekaadaan dadka maamulka la shaqeeyana inay guryahooda ku ekaadaan si annaga iyo tuugada dadka tuugada ah oo maartay aan ciidanka ahayn aan isugu soo baxno xildhibaan Dahabo Suusow oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa dhankeeda ka hadashay xaaladda amniga degmada hooyooyinka guryaha joogo dhalinyarada ka soo baxayo waxaan rabaa ayaga dhaleen inay ogaadaan markay soo baxaan waxay qabanayaan maamulka aad u shaqeeyay habeenkii waxa jir roondo aan Kaaraan deganahay oo soo baxay wax u socdo laakiin ma arkin baliis socdo roondo ku jiro xaafadaha soo galay laakiin waaxaha degmooyinka way shaqeynayaan waxaan codsanaa gudoomiye degmada Kaaraan hadoo ciidanku ku yaryahay inay ciidan siisid oo kaalmeeyo waxay u baahan yihiin kaalmo la kaalmeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in sugidda amniga ay tahay mas'uuliyad wadareed loo baahan yahay in ay ka qayb qaadato qof kasta oo jecel nabadda iyo horumarka marka bal tuugo abtiri adiga ama burcuda abtiri magala abtirsiima magalayo marka magacii aabihii iyo hooyadii ay ula baxeen ee uu ku dhacay abtirsiimaha meelow iska dhigay mid aad u xun oo bulshada dhibaha u qaatay haddii uu qaatay marka haddaad moodayso adiga kii magaca loo bixiyey ee kugu abtirsanaya inuu yahay waa ka tegey meel kale aad runtu waa sidaas marka waa kaa tegay ha u danqanin qofkan haddii dhaqankiisu xun yahay dhibaatadu adiga ku keenayo ama uu bulshada kale u keenayo ayaa ka badan midda aad isleedahay armadkaasha kana heli maysidba marka qofka noocaas oo kale ah mataqaanaa maalin walba ku jira khalad ee aadan la wadaagaynin yacni hay'adaha amniga ama maxkamadda ama maamulku laftiisu maalin walba inta loo sheego uusan meel gaarsiinayn waxa noocaas oo dhibaatada qaybaad ka tihi sidaa darteed dhibaatooyinka dhacaya shakhsiyaad aad u yar ayaa samaynaye bulshada kale ma samaynaysa raallina kama ahe soo gaarsiiye waddanku wuxuu leeyahay dawlad iyo hay-ado amni iyo garsoor